wasaaradda qorsheynta xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo tan arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Cadaado waxa ay ka hirgeliyeen leerarka ku shaqeeya cadceedda. Talaabadan ay dadka qaar ee magaalada Cadaado waxa ay ku tilmaameen mid ka qayb qaadanaysa horumarka iyo bilicda magaalada Cadaado. mashruucan oo ay sakaashanayaan maamulka degmada Cadaado, wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug, wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha gudaha Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxa magaalada Cadaado looga hirgelinayaa leerarka ku shaqeeya cadceedda qoraxda xilliga habeenkii la isticmaalo. xaafadaha Karaama waa bari iyo galbeed ayaa si gooniya looga hirgeliyay mashruucan, waxaana daafurka qaybtiisa koowaad ka soo qayb galay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha gudaha Soomaaliya. sidoo kale dadka ku dhaqan xaafadaha laga hirgelinayo mashruucan ayaa loo sameeyay 10 maalmood ee la soo dhaafay tababaro la xiriiray ilaalinta iyo dayactirka leerarka ku shaqeeya cadceedda qoraxda ee xaafadaha magaalada Cadaado laga hirgelinayo. duqa degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toortoole iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug ayaa ugu horreyn uga mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay hirista iyo fulinta mashruucan. sidaas daraadeed haddana codsi kale ayaan dirsanay heer degmanaga ah wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ayaanu ku wajahnay wasaaraduna wasaaradaha ka sareeya dowladda federaalka sida arrimaha gudaha iyo qorsheynta iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dhamaantoodba barnaamijkaas waxay nagala qayb qaateen waan uga mahad celinaynaa. waxaan sidoo kale uga mahad celinaynaa xildhibaan arrintan asaguna nagala qayb qaato deegaanka ka soo jeedo xildhibaan Aftidoon asagana markasta waan xusaynaa arrintan uu nagala qayb qaatay dhib badan oo aan ka marnay dadkii oo nagala qayb qaato ahaa wasaaradaha nagala soo dhameeyay dokumentiyada nagala soo dhameeyay. marka waxaan leenahay dadweynahana hadde waxaan le ilaashada ma dhahayo oo way ilaashadeen dadweynaha reer Cadaado, laakiin waxa laga rabaa in dayactirkooda iyo ka shaqayntooda iyo ka warqabkooda iyo haddii mid shaqaf dabayl ka tuurto sidii hore ay u soo sheegi jireen sidoo kale inay u soo sheegaan. barnaamijkani wuxuu daafur u yahay ama bilow u yahay cabashooyinkii nooga imaanayay degmooyinka galmudug oo baahiyaha ay qabaan oo ah mugdiga iyo leer la'aanta ayay Cadaado ka mid tahay soddonkan leer oo ka hirgelinayno. degmooyin kale oo galmudug hore ayaan loogu hirgelinay oo looga hirgeliyay sida degmada Cabduwaaq iyo degmada iyo magaalada Gudinlabe iyo deegaano kale oo sida Gaalkacyo iyo maartay deegaamo badan oo galmudug ah. mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha gudaha Soomaaliya oo goobjoog ka ah daafurka qaybta koowaad ee mashruucan ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay markasta u taagan tahay sidii shacabka Soomaaliyeed ay deegaanadooda ugu heli lahaayeen adeegyada aasaasiga ah. sida arkaysaan degmadan waxaa laga hirgeliyay 75 solar oo hore ilaa hadda taagan. waa yartahay degmooyin ilaa hadda ku shaqeynaya. caasimadda waa arkaysaan qaarkood waa la siibtaa maca birta la baxay iska daa solarka iyo baterigaas. marka waxaan Cadaado ugu mahad celinaynaa sida dadka degmada Cadaado jooga waxaan ugu mahad celinaynaa sida ay solarkooda u ilaaliyeen. dowladnimadu ma ahan maamulka degmada kaliya, dowladnimadu waa shacabka. waxa meeshan ilaaliyay waa shacabkii. leerarka solarka ee degmadan Cadaado wasaaradda qorsheynta heer federaal waxa ka go'an inay isku dubarido oo xaqiijiso keenida iyo fulinta isku dubaridda mashaariic ka turjumaysa baahida bulshada. runtii aadna waxaan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan saaxiibtinimada leh wada shaqeynayaan maamulka degmada iyo maamul goboleedka galmudug iyo diplomatic partnerska. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadaha laga hirgelinayo leerarka ku shaqeeya cadceedda qoraxda ayaa soo dhaweeyay mashruucan xaafadahooda laga hirgelinayo. waxaa ilaahay mahadiisa maanta haddii solar system-kan maartay cadceedda ku shaqeynaya oo ifka weyn oo ballaaran leh oo magaalada muuqaalka ama maartay aragtida ama ku dheelmadka waqti kastaba faa'iido weyn bay noo tahay. gaar ahaan waxaan leeyahay hadda anaga xaafadeena galbeed ahaan loo suray waxaan ku wacyigelinaynaa dadka degan oo loo suray hantidan anaga iska leh dadkii keenay anagayna siiyeen mulkiyad ilaahay anaga noo soo wareejiyo nagu hibeeyay weeye waa inaan waardiyeysanaa in cid allaale cidii ku lahayd tilaabo aad iyo aad aan u soo dhaweynayna waana baraarujinaynaa ka guddi ahaanna sidii loo tababaray waxaan ka soo bixi doonaa qaabkii la siiyay saddexdood bari seminaarkii ahaa waxaan markasta ka shaqayn doonaa dadkana u sheegi doonaa haddii bateri ka demo in aysan hay'addu kabayn ee ay kabayaan dadku ayaguna ay iska leeyihiin. Cabdirasaaq Al Abdaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado.